Talyaaniga oo kala boobay tigidhada daawashada kulanka AC Milan iyo Napoli ee Champions League ayaan rabaa inaan warbixintan kuula wadaago balse daawada intaanan warbixintan u guda gelin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like gareyso sidoo kale aad soo follow gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada waddanka Talyaaniga waxaa durba gabaabsi ah oo la leeyahay tigidhada daawashada ciyaarta lugta hore ee wareegga 8 Champions League ee u dhaxeeya AC Milan iyo Napoli iyadoo durbaba inta badan tigidhada la wada iibsaday subaxnimadii Jimcihii shalay ayaa si rasmi ah loo bilaabay iibka tigidhada daawashada ciyaartan waxaa labadii saacadood ee ugu horeysayba la iibsaday in ka badan 10,000 oo tigidh UEFA oo qayb ka mid ah tigidhadan u qorshaysay madaxda iyo marti sharaf kale halka ay sidoo kale jiraan dad haysta tigidhada Champions League ee sanadlaha ah sida ay warbaahinta Talyaanigu sheegtay 10,000 ee tigidh oo labadii saacadood ugu horeysay ayaa waxaa raacay oo 24 saacadood gudahood lagu iibsaday 27,000 oo tigidh oo kale taasoo ka dhigan inay iibsadeen 37,000 oo tigidh taageerayaasha Talyaaniga ayaa mashquul badan ku ah sidii ay u heli lahaayeen tigidhada ciyaarta lugta hore ee San Siro Stadium iyadoo lugta hore ay dhici doonto 12 Abriil iyadoo lugta labaad oo toddobaadka ku xiga ay la ciyaari doono AC Milan ayaa u tahay markii ugu horeysay ay ciyaareyso wareegga 8 Champions League tan iyo sanadkii 2012 halka Napoli oo meel hore ku hari jirtay aad looga saadaalinayo in sanadkan ay meel fiican ka gaari doonto tartanka Champions League iyadoo horyaalka Serie A ay taagan tahay meel aan lagu xiriirin karin